munaasabadan ballaaran ee lagu xusayay looguna dabaaldegaya sanad guradii 55 ee kasoo wareegtay markii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xornimadiisa ka qaatay boqortooyada Ingiriiska sanadkii 1960 Juun ayaa lagu qabtay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland waxaana kala qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye inta badan golaha wasiirada ee Soomaaliland barasaabkii Hargeysa ee markii ay Soomaaliland ka heshay gobonimada Ingiriiska iyo odayaal waqtiga taagnaa xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranka ee Soomaaliland taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo madax kala duwan oo goobjoog ahayn mudane Axmed Maxamed Siilaanyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland mudane madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhaw madaxweyne dabaaldegan iyo fantasiyahan loo sameeyay maalintan qiimaha weyn ugu fadhida qaranka Soomaaliland isla markaana xus iyo xusuus gaaraba u leh shacabka Soomaaliland ayaa waxa madasha ka hadlay Cismaan Axmed Xasan oo sanadka ay Soomaaliland qaadatay gobonimada barasaab Hargeysa ka ahaa waxaan u cabiray maalinta iyo qiimaha ay lahayd ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa maalintaana inaan joogay oo farxadii iyo dabaaldegii iyo dadka himiladeedii ay muujinayeen inaan ka qayb qaatay inaynu ogaanay in aynu dhibaato ina soo martay dib dambena aan uga feejignaanayno si aynu u ilaashan lahayn ereyga aan ka tegayaa un waxa weeyaan da'da dambe iyo da'dan iminka joogtaba la idinku soo sinye ilaaliya waxaa lagu ilaalinayaana waxa ugu weyn nabad iyo wada socod iyo isu dulqaadasho xildhibaan Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi Waraabe oo kamid ah dadkii joogay waqtiga ayaa duca iyo dardaaran dhaxalgal ah oo waayeelnimo u soo jeediyeen guud ahaan shacabka Soomaaliland waxaanu ilaahay baryaynaa ilaahay inuu noo nageeyo waxaanu ilaahay baryaynaa makhluuqa intiisa xun in alla inaga jeediya war waxa haysataan Soomaaliland ha ku faraadaysto mid ha noqoto ha isticlaato ha wada socoto bari iyo galbeed wixii dhabaqaa ha la ilaaliyo madaxweynuhu ha raago kii haya ha noqdo waa nin weyn waa nin caqli leh waa nin ilaa madaxii ilaa mijihii ogaa waa nin waxay tahay fahmaya cimriga Allah u barakeeyo maxamuud aadan dhari iyo saxardiid raago oo iyaguna goobjo ahaa waqtigaasi ayaa sharaxay maalinta iyo qiimaha ay lahayd waxay ahayd waqti aan farax la dilaacday waxay ahayd maalin aan la ilaawi karin gudoomiyaha xisbiga talada dalka ee kulmiye mudane Muuse Bixi Cabdi ayaa fariin u diray Xasan Sheekh Muqdisho kalgacaylkii iyo isu dhiibidii shanta Soomaaliland doonayaan isku dhiibay ee aan ku yiri anigu waxaan doonay Soomaaliland shan midowdo ee ka hadlaysan inuu ku ururo ayaa markaan xamar tagay cay ugu noqotay kolkaas caydii laga hari waayay markaas gacan la qaaday markaas diyaaradii u garaacay markaas maateeda la xaqay markaas xalay Xasan Sheekh doonaya inuu heesaaniga oo hada blue baan saaraya war waxaas waxaan isugu imanana maaha calankii Soomaaliya kala ilaahay ku qorayahay kii aanu samaynay Soomaaliland ee heshiisku aynu ka saaran ilaahay la baa ku qoran lama dajin karo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa farxad weyn ku tilmaamay in shacabka Soomaaliland ay 55 sanadood kadib ay maanta u dabaaldegaan xorriyadoodii ay ka qaateen dalka Ingiriiska waxa farxad weyn maanta inuu dabaaldegno
26 juun maalinteenu xorriyadda dalkeenna aynu qaadanay taasoo muddo dheer imika ay ka dambaysay dalkeennu waa dal aad iyo aad u soo halgamay dadkiisa shacbigiisu xorriyaddiisa madaxbannaanidiisu u soo halgamay waynu qaldannay waxyaabo badan oo aynu samaynay way jiraan laakiin maanta waynu ka soo kabannay xorriyaddeenna waynu haysannaa dadnimadeennu haysannaa magaceenna iyo sharafteenna waynu haysannaa dadweynaheenna iyo dowladnimadeenna iyo caalamkao dhan waynala macaamilaa waxalla waxaynu u baahno waynu qabsan karraa waynu tashan karraa waynu waran karraa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaynu noqonno ilaahayna ictiraaf buuxa aynu ka helno dunida caalamka waynu ku dadaali doonnaa waynu ku shaqayn doonnaa waynu ku howlgeli doonnaa waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidamada qaranka waxaan u dirayaa shacbiga reer Soomaaliyeed meel ay joogaanba hambalyo aad iyo aad u ballaaran baan u dirayaa waxa la ku galeystay ay naga yaraayaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin munaasabadan ballaaran ee ahayd 5 guurada ka soo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland gobonimada ka qaadatay dalka Ingiriiska ayaa waxa lagu qabtay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland Axmed Sagdaar Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa